farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaan farxaan qaroole waa sargaal dhalinyaro ah kaas oo magaciisa aad u soo shacbaxay 4 sano ee uu jiro maamulka Farmaajo. Farxaan ayaa si weyn loogu bartay weerarkii dastuurka baalmarsanaa ee lagu qaaday xarunta xisbiga Wadajir, waxaana tan iyo markaa wixii ka dambeeyay uu ahaa sargaal dalacaad isdaba joog ah sameynayay. hogaamintiisa ciidamada Haramcad waxa ay ka sii dhigtay sargaal loo adeegsado wax kasta oo filadu diidan tahay, isagoo ku lug yeeshay kiisas badan oo khilaaf abuuray. bilowgii sanadkan ayaa loo magacaabay taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, waxaana uu bedelay generaalkii isaga soo gacan qabtay Saadiq John. jimcihii la soo dhaafay ayaa taliya Farxaan oo ay weheliyaan ciidamo aad u fara badan waxa uu ka degay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Farxaan iyo ciidamada la socda ayaa la dejiyay madaxtooyada cusub ee Galmudug oo weli dhismo uu ka socdo, waxaana durbaba soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan ujeedka halka uu tagay. ka qaybgalka gulufka coladeed ee ahlu sunno looga saarayo Gurceel ayaa ugu weyn sababaha uu sargaalkan u tagay Dhuusamareeb, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug. laakiin su'aashu waxa ay tahay muxuu Farxaan Qaroole ka galaa Galmudug, gaar ahaan caasimadda iyo Gurceel oo colaade ay ka taagan yihiin? ka sokow inuu yahay farsamo yaqaan ku dhow Fahad iyo Farmaajo, ma jiro wax aan ahayn farsamo oo uu ku biiran karo dib u riixidda ahlu sunnada dib u soo abaabushay. waa sida ay qabaan dad badan oo reer Galmudug ah. hawshaas oo ah mid uu ku qaban karo xafiiskiisa Muqdisho isagoo oon dayacin waajibaadkii saxda ahaa ee dawladdu u idmatay ee ahaa sugidda iyo xaqiijinta amniga caasimadda Soomaaliyeed. saraakiisha qaar waxa ay qabaan in Farxaan Qaroole joogitaankiisa caasimadda ama ka qaybgalka dagaal kasta oo Gurceel lagu qaadayo ay hoos u dhigi karto guul laga fisho in ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay kala soo laabtaan magaalada Gurceel. waxa ay ku sababeynayaan sumcadda sargaalkan looga hayo deegaanka dagaalka lagu wajahayo iyo in uusan si fiican dhulka iyo dadkaba u kala aqoon. waxa kaloo saraakiishu sheegayaan in ahlu sunna ay Farxaan Qaroole dartiis ku heli karaan taageerayaal iyo ciidamo fara badan oo difaac u noqda. doodaha la diiwaan geliyay ee dadku isla dhex marayaan waxa ka mid ah in ka qaybgalka Farxaan Qaroole ee duulaanka Gurceel loo fasiran karo dagaalkii ka socda Qalanqalle oo loo soo xawilay magaalada Gurceel. xogo aan weli la xaqiijin oo aan ka soo xiganay ila ka tirsan saraakiisha amniga Galmudug ayaa sheegaya in Farxaan Qaroole uu ka mid yahay saraakiisha hogaamin doonta duulaanka lagu qaadayo magaalada Gurceel, taas oo lagu fasiri karo in ay tahay farsamo xumo kale oo ay hoggaanka Galmudug galayaan oo saacidaysa in ahlu sunno ay isdifaacdo. doodaha la diiwaan geliyay ee dadka reer Galmudug isla dhex marayaan waxa ka mid ah in ka qaybgalka Farxaan Qaroole ee duulaanka Gurceel loo fasiran karo dagaalkii ka socda Qalanqalle oo loo soo xawilay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. waxay su'aashu tahay inta ahlu sunno xididasiib la isleeyahay ama xeelad xumo lagu dhaqaaqaa. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya Gurceel waxa ay sheegayaan in xaaladda magaalada Gurceel ay kacsan tahay, barakac xoog leh oo ka socda magaalada, iyadoo ciidamada ahlu sunno ay difaacyo qoteen isla markaana ay Gurceel isugu keeneen ciidamadii ugu badnaa si ay isku difaacaan.